Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar ay diyaaradaha dagaal ee Israa'iil ka geysteen magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar kaas oo lagu bartilmaameedsaday mid ka mid ah xafiisyada sida maalinlaha ay uga howlgalaan kooxda Xamaas ee reer Falastiin ee saldhigoodu yahay magaalada Doha. ilaa hadda waxaa soo baxaya macluumaad kala duwan oo faahfaahin ah oo la xiriirta weerarkan waxaana la xaqiijiyay in 10 diyaaradood oo kuwa Israa'iil ah ay weerar ku qaadeen magaalada Doha gaar ahaan guriga halkan ku yaala oo ay wada hadallo ku lahaayeen mas'uuliyiinta ugu sareysa kooxda Xamaas ee reer Falastiin kuwaas oo doonaya inay ka jawaabaan fariin hanjabaad ahayd oo uga timid madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump 48 saac ka hor oo ugu sheegay inay haystaan waqti kama dambayso oo ay tahay gabi ahaanba ku sii daayaan maxaabiista gacantooda ku jirta waxaana uu sheegay in tahay fariintii ugu dambeysay ee uu diray xilligaas Trump isagoo sheegay in dhinaca Benjamin Netanyahu iyo Israa'iil ay ka ogolaadeen heshiiska uu soo jeediyay xabad joojinta kaas oo sheegay in tahay gabi ahaanba maxaabiista lagu fasaxo. weerarka ay Israa'iil ka geysatay magaalada Doha ee dalka Qatar waxa uu durba kiciyay xiisad xoog leh oo diblomaasiyadeed. dowladda Qatar inta aynan jawaabteeda iyo sida ay uga falcelisay aynu eegin weerarka ilaa hadda waxaa la xaqiijinayaa in goobta ay ku sugnaayeen 10 ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan kooxda Xamaas ee reer Falastiin oo ay ku jiraan hogaamiyaasha kooxdan qayb ka mid ah. arqam Kaleshwa waa guri si casri ah loo dhisay oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Kaleshwa waa guri leh adeegyada aasaasiga haddaba haddii aad danaynayso inaad magaalada Nairobi aad guri ka iibsato nagala soo xiriir telefoonada shaashada ku qoran. Khaliil Xaya oo hogaamiyaha kooxda ayaa la xaqiijiyay inuu ka badbaaday weerarka oo aysan khasaare ka soo gaarin sida ay xaqiijinayaan xubno ka tirsan kooxda Xamaas iyo waliba sidoo kale warbaahinta Carabeed ee saldhigeedu yahay magaalada Doha ee dalka Qatar. waxaa kale oo la sheegay in goobta ku sugnaayeen xubno kale oo foolaado oo uu ka mid yahay Khalid Mashcal, Maxamed Ismaaciil Darwiishi iyo xubno kale oo muhiim u ah dhinaca kooxda Xamaas kuwaas oo wada hadallada garwadeen ka ahaa lagula jiro dhinaca iyo waliba dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah oo ay Qatar foolaado tahay Mareykanku xubin ka yahay sidoo kalena ay Qaahiro ayana xubin ka tahay. waxaa la sheegay in dhinacyadu ay ka arrinsanayeen xilliga weerarka lagu qaaday sida ay ugu jawaabi lahaayeen madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump oo isagu maalin ka hor u soo gudbiyay fariin ah inay u diyaar garoobaan dagaal rasmi ah ama dhammaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan ay sii daayaan isagoo aan keenin wax ka bedelan dhammaan hanjabaadihii hore uu jeedin jiray. Israa'iil warbaahinteedu waxay sheegaysaa inay gaareen yoolkii iyo hadafkii weerarka laga lahaa waxayna sheegayaan in la dilay xubno muhiim oo ka tirsanaa kooxda Xamaas ee reer Falastiin laakiin ilaa hadda ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta marka laga tago sheegashooyinka warbaahinta Israa'iil iyo saraakiishooda oo ay ka mid yihiin taliska ciidanka Israa'iil iyo waliba sidoo kale hay'adda Shinbet ee sirdoonka oo sheegay in wadajir howlgalka u qorsheeyeen. Israa'iil maxaa ay weerarkan u raysaareedu ka yiri Ra'iisul Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa markii ugu horeysay waxa uu weerarka ku tilmaamay mid si madax bannaan ay Tel Aviv iyadu u go'aansatay tan oo macnahan ka dhigan in sahminta, qorsheynta, go'aanka gaarista, fulinta iyo waliba sidoo kale si dabagalida xogaha kala duwan ee khasaarahaba intaba ay si madax bannaan u leedahay Israa'iil oo aysan cid kale ku helin waxaana tan lagu fasiray fariintu inay tahay mid laga leexinayo dhinaca reer galbeedka. warbaahinta la yiraahdo N12 oo ayaa durba sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wax ka ogaa weerarkan ka hor intii aan la qaadin oo Israa'iil ay ku wargelisay si uu dhammaan xulafadiisa gobolka bariga dhexe dhammaan ugu wargeliyo tallaabada ay Israa'iil qorshaysay ee inay disho xubnaha ugu muhiimsan kooxda Xamaas ee reer Falastiin. dhinaca kale war ka yimid isla ciidanka Israa'iil waxa gordhow lagu sheegay in dhammaan xubnaha la bartilmaameedsaday ay 10kii sano ee la soo dhaafay foolaad u ahaayeen kooxda Xamaas ee Falastiin isla markaana ay wax ka qorsheeyeen weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii 2023 ee duufaantii Aqsa kaas oo Israa'iil loogu dhuftay dharbaaxadii ugu xoog badnayd oo ka soo gaarta dagaalka u dhaxeeya Falastiiniinta iyo Israa'iil tan iyo intii uu socday. waxaana la xaqiijinayaa in Israa'iil ay weerarkan u aragtay mid ka mid ah kuwii ugu weynaa ee ay fuliyaan iyagoo madax bannaan. muxuu ka dhigan yahay maxaa dunida carabtu durba ka tiriyay dowladda Qatar oo dalkeeda weerarka lagu qaaday isla markaana maganteedii ama martideedii Doha la beegsaday waxay sheegtay inay durba ku dhaqaaqday tallaabo degdeg oo lagu joojinayo wadaxaajoodiyadii ay dhexdhexaadinta ka dhex waday dhinacyada Israa'iil iyo Falastiin. waxay sheegtay Qatar inay baaritaan degdeg ah ku jirto isla markaana ay soo saari doonto war kama dambayso oo go'aankeeda la xiriira. waxay tilmaantay in falka lagu weeraray xarunta kooxda Xamaas ee reer Falastiin ee magaalada Doha ay tahay mid ka dhan ah amniga iyo madax bannaanida qaran ee dalka Qatar isla markaana uu yahay fal wuxuusnimo oo ay Qatar doonayso inay si degdeg ah uga jawaabto.
dowladda Iiraan ayaa ka mid noqotay dowladda labaad ee si rasmi u cambaaraysa weerarka lagu qaaday dalka Qatar gaar ahaan xaruntii ururka Xamaas waxayna sheegtay in falkaas uu yahay jariimo weyn oo ka dhana xuquuqda diblomaasiyadda madax bannaanida daleed ee Carbeed ee Qatar iyo waliba sidoo kale dadaaladii nabdeed ee loogu jiray xaalka bariga dhexe nabad lagu dhameeyo waxay sheegtay dowladda Iiraan in Israa'iil falalkeedu ay muujinayaan weeraradeeda bahalnimo inay doonayso in gobolka oo dhan ay ka rogto aag lama dagaan ah oo dagaaladu ay isaga sii socdaan wararkeena dambe ayaan ku eegi doonaa faahfaahinada kala duwan ee arrintan ka soo kordha haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PayC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zaad, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PayC